والتقى وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب. waxaan joognaa afaafka hore ee magaalada Qardho caasimadda gobolka Karkaar maanta waxa la filayaa inuu saacada kadib uu soo gaaro sheekheena Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haruun waxa halkan isku soo baxay bulshada aad u qiimo badan oo kamid ah bulshada magaalada Qardho waxaanu weydiin doonaa insha Allah dareenkooda iyo sida ugu diyaar garoobeen imaanshaha sheekha Sheekh Nuuxi ayaan ku bilaabaynaa ما شاء الله إلهي بقى مهندس سبحانه وتعالى وحا شرف إنه أنا الشيخ مصطفى سوداوي إنه دقائق ونقوش ودوي هاي إلهي وحن كبر إنه نمضنا وكانه وأنا وحفر حله إن أن شيخ سوداوي إنه رنتي أمد الصوماليات سامين بكل هاي إلهي وحن كبر إنه سامين تأولي هاي يجعلك الله قبل إنه الله أقبله وجعل آخره يدوم بوجديه إلهي وحن كبر إنه أنت صح حاضرتي ورق يضمر يوحجرد يعلماء يدولة بله إنه ميزانك آخر أقول وضرنا إلهي كرجينا شيخ أحمد نقول سوداوينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت عادي بفرحان موجود هاي وأنا هلكان كسوجينه الشيخ عنك وين إله بقى وين شيخ مصطفى إسماعيل هارون هذا بنو فرح سنة إن شاء الله هذا هاي ديجان كرير قرضات وحنا رجينا إن شاء الله تعالى إن زاد بدن كلاه الروح دي الله يلاده هلكان وح إن بدل الجسود دوية عيان فر بدن waxaan ma yeelayaa inuu yahay ninka ugu magac dheer oo maanta halka lagu soo dhaweyn doono insha Allah sheekhu Allah barakeeyo leenahay waana sugaynaa insha Allah goor inuu soo gaaro waana ka faa'iideysan doonaa aad baa mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أنا مقعي لي عبد الناصر عبد الله علي waxaan aad iyo aad dhammaan deegaanka Qardho iyo maaragtay degmada Qardho iyo aageeda iyo Puntland guud ahaan ku soo dhaweynaynaa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Xaaji Haruun aad iyo aad waxaan leenahay sheekha Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qofka markuu jeclaado Jibriil buu amar siiyaa wuxuu yiraahdaa jeclow kadibna Jibriil waxa la yiraahdaa amarka malaa'igta gaarsi amarkii jacaylkii baa waxa loo soo dejiyaa dhulka dushiisa saa daraajeed Ilaahay jacayl buu dadka qalbigooda u wada galiyay Sheekh Mustafa waxaan rajaynayaa kalimaadkiisa iyo wacdigiisa iyo muhaadaraadkiisa in laga qayb qaato oo aad looga faa'iideysto ayna saad noo noqdaan insha Allah inta amrigeena ka dhiman hadii lahaydmo aad baan u soo dhawaanaynaa hadii lahaydmo haddaan nahay xildhibaano haddaan nahay dawladda garsoorka haddaan nahay culumada haddaan nahay odayaasha haddaan nahay gabdhaha haddaan nahay haweenka haddaan nahay dhalinyarada dhammaan waxaan leenahay ku soo dhawow degmada Qardho iyo gobolka Karkaar guud ahaan iyo Puntland guud ahaan aad baan u salaamaynaa insha Allah ta'ala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعلى راجع العاجي ان شاء الله وحن جوجنا برحدي قردود وحن سو دوينا الشيخ مصطفى oo Puntland jooga ilaa 5 asbuucan insha Allah hadana Qardho soo socda ilaa iyo Puntland buu mari doona insha Allah wadaadka waxaan ugu ducay u baryanaa Ilaahay miisaankaas aakhiro Ilaahay uu kabo anakuna kuwii dacwada uu wado oo xambaarsan yahay Ilaahay ku anfaco inuu naga dhigo wabillahi tawfiiq بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي baa mahadle waxaan halkan u taaganahay duleedka magaalada Qardho inaan ku soo dhaweyno sheekheeni weynaa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil ka dawlad ahaan ka shacab ahaan dhammaan reer Puntland gaar ahaan maanta magaalada Qardho waxaan waxa weey rajaynaynaa insha Allah sheekha oo mar dhowna soo gaari doona Ilaahay inuu nagu soo gaarsiiyo si nabadgelyo ah dadka reer Puntland waxa weey dhamaantood waxay u heelan yihiin soo dhaweynta sheekha dumar caruur haween dhalinyaro odayaal dhammaan waxaan insha Allah Ilaahay ka rajaynaynaa inuu sheekha waxa weeye wanaagiisa iyo khayrka uu noo wadana laga wada faa'iideysto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu noogu yimaado magaalada Qardho sharaf bay noo tahay dhamaantay waa u taaganahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu goor soo gaari doono assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد واحد لهذا عبد اسمان إبراهيم كم قاعد عبد يره ما أنت واحد سود ويننا إلهي سبحانه وتعالى نجوا في جيه قبل كركار شيخين نجوا وينا
sheekh mustafa xaaji haaruun ayaan soo dhowaynaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan u soo dhowaynaynaa ilaahay dartiisa waa nin la soo dhoweeyo ninka ugu mudan weeye alxamdulilah culmadeena ugu weynad soomaaliya weeye marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waana ogolnahay ilaahay dartiisaan u ogolnahay shiikhow waxaan ku leenahay ku soo dhowaaw gobolka karkaar ku soo dhowaaw degmada qardho ilaahay dartiisa insha allah intaad joogtidna ilaahay idinkiis waa kula joogaynaa insha allah waxaad noo hayso noo faa'iidaynaysidna insha allah waana kaa qaadan doonaa ilaahay idinkiis waana ku salaamaya shiikhow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم maanta waxa weeye maalin weyn bay noo tahay waxaan soo dhaweyno wadaadkeena weyn sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun waxay noo tahay maalin farxada sheekheena inuu inoo yimaado oo waxa weeye aqoontiisa iyo cilmiga uu leeyahay aan wax ka kororsanno oo wax ka faa'iidaysano insha allah aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa wadaadkeena sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun waxaan leenahay ku soo dhawow magaaladaada iyo sheekh aad iyo aadna waa idin salaamaya dhammaantiin meel kasta aad joogtaan waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo sheekh mustafa haaruun gurigaygii waa naga soo baxay saacado badanna halkan waan u taaganahay waana ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo sheekha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سود وينيا أنا ومقعي قيها أمينة محا عرتن شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون سود وبالي يا شيخ وحن اسكوكو صوب بحنا لما شعب كاسود ومحبة الشيخة داعي وين يا شيخ مصطفى سود وبالي قرنك سود ويلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب وانسود وين يا شيخ يا شرفت على الشيخ مصطفى حاج هارون إسماعيل مركو وادي مرلو واد بكسود ومقالة لقاء جعل دتك وكجعل ويلكم باليش waxaan soo dhaweynaynaa sheekh mustafa haaruun waan ku faraxsanahay sheekh mustafa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بان ugu faraxsanahay sheekha ilaahay dambigiisa ki waalidkiisa ha dhaafo abaal marintiisa ilaahay baa iska leh ilaahay ka abaal mariyo aad baan u soo dhaweynaynaa muslimka oo dhan Allah u dambi dhaafo meel ay joogan baa Allah ku xifdiyo isagana nabadgeliyo iyo naxariis baan ilaahay بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم horta marka koowaad iyo marka labaad ba ilaahay waa mahad leh alxamdulilah rabbil caalamiin tan kale waxaa leeyahay maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa sheekh mustafa ismaaciil haaruun maanta waxay noo tahay maalin hore nooga duwan oo aad u farxad badan maasha allah maadaama uu soo maanta noo yimaado socdaal nooga sheekheena sheekh mustafa ismaaciil haaruun waxaa leenahay sheekh ku soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga maasha allah sheekh mustafa haaruun aad baan ugu faraxsan inta dadweyne oo shacab halka ka muuqata waxa u soo bixin sheekheena inay soo dhaweeyaan ma sha Allah فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa dhammaan dadka soo dhaweynaya sheekha marka waxaan soo dhaweynaynaa sheekh mustafa ismaaciil haaruun waxaan maanta iskugu soo baxnay magaalka banaankiisa inaan soo dhaweyno sheekh soo dhawow waxaan halka u taaganahay adiga